dacad aan hore uga dhicin horyaalka ugu xiisaha badan la dunida ee Premier League ayaaba xalay toole ka dhacday kulankii kooxaha Manchester United iyo Crystal Palace. Dhacdadaasina waxay gool ku laagay ama rikoodhii laga dhaliyay kooxda Manchester United. Mateta ayaaba rikoodha lagu dhigay. Isagii baana laatay. Rikoodhahaas waa u dhaliyay. Hase ahaatee ku celi baa lagu yiri. Sababtuna wax kale ma ahayne waxa ahayd inuu double touch sameeyay. Yacni lugtan uu ku laadayo haddii aad u fiirsato kaligeed kuma san taaban ee kubaddu waxa ku sii dhacaysa intaan shabaga gelin lugtiisa kale sidaas daraadeed ku celi baa lagu yiri laakiin waxaad ogsoonataa laguma celin jirin dhacdooyinka noocan oo kale ah hase ahaatee waxa sababtay in lagu celiyo rikoodhii muranka badan dhaliyay ee Atletico Madrid ku hadhaysay markii ay la ciyaarisay Champions League Real Madrid sanadkii hore sidaas daraadeed xeerka kubadda cagta waxa lagu soo daray haddii ciyaartoygu laba jeer uu taabto kubadda markuu rikoodhaha laagayo waliba uu taabto si aan bareer ahayn oo kama ah waa lagu celinayaa rikoodhahaas sidaas daraadeed Crystal Palace waa loogu celiyay rikoodhihii waanay dhaliyeen hase ahaatee taas kagama badbaadin in Manchester United oo maaliyadan aadka u quruxda badan la xalay ku ciyaaraysay ay remontada ku sameysay laba gool kaga badiso haddii aad u baahantiin maaliyadan originalka ah Manchester United xilli ciyaareedkan waxay idinku diyaar tahay Go Sports iyadoo original ah meel walba diiga Soomaaliyeed ka joogtan waan kugu keenna lambarkayguna waa kan ee naga soo dalbo peace Go Sports garoonka ugu labis qurxoon